Bahrain ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyay Carbeed ee ogolaada in la hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed Israa'iil iyadoo ay tani qayb ka tahay cadaadiska ballaaran ee diblomaasiyadeed ee madaxweyne Trump iyo maamulkiisu ay ku doonayaan in si buuxda Israa'iil uga qayb noqoto gobolka Bariga Dhexe. Trump ayaa jimcihii ku dhawaaqay heshiiskan kadib markii wadahadal saddex geesood ah uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo boqorka Bahrain Hamad bin Asiisa Al Khalifa. Saddexda hogaamiye ayaa sidoo kale si wadajir ah u soo saaray bayaan ka kooban 6 sadar oo ay ku cadeynayaan heshiiskaasi waa maalin kale iyo guul taariikhi ah ayuu madaxweyne Trump bogiisa Twitterka ku qoray ku dhawaaqida oo ku beegnay sanad guuradii 19aad ee weerarkii lagu soo qaaday 11kii Sebtembar ee 2001 ayaa timid wax yar kadib toddobaad markii madaxweyne Trump uu marti galin doono xaflad ka dhacaysa aqalka cad taas oo lagu saxiixi doono heshiiska lagu aasaasayo xiriirka buuxa ee Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain ayaa isaguna ka qayb gali doona munaasabada. Heshiiskan ayaa ka dhigan guul kale oo diblomaasiyadeed oo uu soo hooyay Trump muddo yar kadib 2 bilood ka hor doorashada ololaha madaxtinimada, waxaana ay tani u tahay fursad uu ku xoojin doono taageeradiisa musharaxnimada.